kulanti waxaana wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay dagaallo culus oo maanta mar kale dib ugu qarxay gobolka Hiiraan khasaare kala duwan oo ka dhashay dagaalkii maanta ka dhacay duleedka degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan waxaynu idinla wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay iyo sidoo kale dagaaladaasi iyo halka markaasi sida gaarka loogu dagaalamay haddii aynu ku bilowno dagaal culus oo u dhaxeeyo ciidamada dadka deegaanka iyo xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa maanta waxa uu ka dhacay deegaanka lagu magacaabo birta hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ciidamada dadka deegaanka ayaa waxay weerar culus ay ku qaadeen goob ay markaasi ay ku dhuumaaleysanayeen xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab intaas kadibna waxaa xigay dagaal toos ah u dhaxeeyay ciidamada dadka deegaanka iyo xubnaha ka tirsan kooxda Al-Shabaab saraakiisha ciidamada dadka deegaanka ayaana waxay sheegeen in Al-Shabaab ay ka dileen laba xubnood halka sagaal kalena ugu dhaawaceen weerarkii qorsheysnaa oo ay ku qaadeen deegaanka birta oo qiyaastii 16 kiiloomitir dhinaca bari kaga beegan degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan saraakiisha ciidamada dadka deegaanka ayaa waxay sheegeen in dhankooda uu jiro khasaare dhaawac oo soo gaaray sidoo kalena deegaanka iyaga ay gacanta ay ku hayaan gurmadyo kala duwan ayaa waxay ka baxeen gudaha degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan kuwaas oo gaaray deegaanka birta hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan dhaqdhaqaaqyada ciidamada dadka deegaanka ayaana maalmihii ugu dambeeyay waxay ka soconayeen degmada Maxaas iyo sidoo kale duleedkeeda iyadoona markaasi dhowr jeer oo kala duwan ay xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay duleedka magaaladaasi ay kula dagaalameen dagaalka ka dhacay degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli kooxda Al-Shabaab ay maalmihii ugu dambeeyay culeysyo xooggan ay soo saartay deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Hiiraan waxaa la sheegay in kooxdu ay markaasi isku dayeyso inay isku sii fidiso deegaano kale oo hor leh oo ka tirsan gobolka Hiiraan waxaana maalmihii ugu dambeeyay ay maleeshiyaad badan ay ka kala keentay koonfurta iyo sidoo kale bartamaha Soomaaliya si ay ula dagaalamaan ciidamada dadka deegaanka ciidamada macawisleyda beesha xawaadle ayaana sidoo kale waxay dhabarka u dhigteen inay iska difaacaan weerarka ka yimid dhinaca kooxda Al-Shabaab iyagoona muddo ka badan 4 bilood ku horfadhiya xadka wadaagaan gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ciidamada dadka deegaanka ayaana waxaa looga awood roonaaday dagaaladii hore ugu dhacay deegaankaas iyadoona sidoo kale ay sababtay in ciidamadu ay dib u gurasho ay soo sameeyaan sidoo kalena ay isaga soo baxaan deegaanadaasi waxaa kooxda Al-Shabaab u suurta gashay inay la wareegaan gacan ku haynta degmada Moqokori ee gobolka Hiiraan halkaas oo markaasi ay ciidamada dadka deegaanka muddo fara badan ay markaasi ka difaacayeen kooxda saraakiisha ciidamada dadka deegaanka ayaa waxay sheegeen inay garab istaag ka waayeen dowladda federaalka Soomaaliya iyagoona sidoo kale sheegeen dhowr jeer oo kala duwan ay dowladdu ay qeyladaan ay u muujiyeen hase yeeshee qeyladaantoodii laga soo jawaabi waayay waxay sheegeen inay ku sii adkaatay in dagaalku ay sii xoojiyaan maadaama taageero ay ka waayeen sidoo kalena dowladda federaalka Soomaaliya u soo diri weysay ciidamo iyo hub ay kula dagaalamaan kooxda Al-Shabaab muddada 4 bilood oo ay kooxdu ay markaasi ay xoogooda ku sugneed gobolka Shabeellada Dhexe ayayna ciidamadu waxay sheegeen in ay markaasi iska difaaciyeen waxay sheegeen in wali ay ka go'antay inay kooxda la sii dagaalamaan sidoo kalena ay ka saaraan deegaanada muhiimka ah ay kaga jiraan gobolka Hiiraan saraakiisha ciidamada dadka deegaanka ayaana sidoo kale waxay sheegeen in ay sii laba jibaari doonaan dhaqdhaqaaqooda degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ayaana waxaa ka soconaya abaabul dagaal oo ay wadaan ciidamada dadka deegaanka taasoo lagula dagaalamayo kooxda Al-Shabaab ciidamadu waxay sheegeen saraakiishoodu in ay markaasi dhaqdhaqaaqan ay sii xoojin doonaan xilli markaasi la filayo in uu dhawaan uu gobolka Hiiraan uu dib ugu soo laabto Cali Jeyte Cusmaan oo markaasi maalmihii ugu dambeeyay ku maqnaa dalka Itoobiya Cali Jeyte ayaana labadii toddobaad ee la soo dhaafay dowladda federaalka waddanka Itoobiya saraakiishooda waxa uu kala hadlayay dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab iyo in dadka reer Hiiraan garab istaag loogu muujiyo si ay markaasi u sii xoojiyaan dagaalka ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab Cali Jeyte ayaana waxaa la filayaa inuu dhawaan uu dib ugu soo laabto gobolka Hiiraan sidoo kalena uu saldhigto degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan halkaas oo ka bilaabi doono abaabulka dagaal ee ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab Al-Shabaab ayaana sidoo kale gobolka Hiiraan waxay kala kulmeen dagaalo aad u culus oo maleeshiyaad badan looga dilay halka kuwa kalena markaasi looga dhaawacay wili kooxdu waxay ka sabri laayihiin deegaanada istiraatiijiga ee gobolka Hiiraan iyadoona sidoo kale sanado ka hor laga saaray gobolka kooxda ayaana 3 sano ee ugu dambeysay waxay weysay deegaano muhiim ah oo ka tirsan gobolka Hiiraan iyadoona sidoo kale dhaqaale fara badan ka heli jirtay deegaanadaasi
dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda ayaana sidoo kale aragti ahaan waxay qabaan in kooxdu sababta ugu hardamayso gobolka hiiraan ay tahay laba arrimood. midda koowaad ayaana sidoo kale waxaa lagu sheegay in kooxdu ay dhaqaalo badan ay ka heli jirto gobolka hiiraan, iyo sidoo kale midda labaad ayaa waxaa lagu tilmaamay haddii markaasi deegaanadan isaga tagaan in markaasi deegaanada kale ee gobolada kale dadka ku nool iyagana ay markaasi go-aan qaadan doonaan, taasoo ay kula dagaalami doonaan kooxda ayaana waxay ku faraadeegaysaa deegaanadan iyadoona sidoo kale dagaalo adag la galaysay maalmihii ugu dambeeyey ciidamada dadka deegaanka ayaana sidoo kale iyagana waxaa ugu geeriyooday askar badan muddadii ay markaasi dagaalada adag ay kula jireen kooxda al-shabaab, iyadoona sidoo kale la sheegay in weeraradan iyo howlgalladanba ay yihiin kuwa markaasi qorsheysan oo ay kooxdu ay markaasi isaga difaacayeen ciidamada dadka deegaanka. laba magaalo oo muhiim ah ayayna sidoo kale kooxdu xilligan ay gacanta ku haysaa degmada Moqokori ee gobolka Hiiraan iyo sidoo kale deegaanka Tardo oo iyaga ah deegaan istiraatiiji ah, sidoo kalena isku xira deegaanada iyo degmooyinka kale ee ka tirsan gobolka Hiiraan. Tardo ayaana sidoo kale waxay isku xirtaa degmooyinka Beledweyne, Maxaas, Bulburda iyo sidoo kale Jalalaqsi, iyadoona sidoo kale la sheegay in degmadan ay tahay degmo istiraatiiji ah, sidoo kalena kooxdu ay muddo badan ay ku haminaysay in ay la wareegto. sidoo kale degmada Moqokori ee gobolka Hiiraan iyadana ku taalla xadka ay wadaagaan gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ayaana kooxdu waxay markaasi culays badan ay soo saartay bilooyinkii ugu dambeeyey, iyadoona ugu dambeyntii la wareegtay. Moqokori ayaana waxa uu yahay degmo istiraatiiji oo muhiim ah, sidoo kalena markaasi ay kooxdu ay doonaysay in ay ku sii fara adeegto maadaama markaasi ay dagaalo adag ay la galeen ciidamada dadka deegaanka. qabsashada degmada Moqokori ee gobolka Hiiraan ayaana waxaa loo sameeyay in kooxdu ay markaasi u aragto fursad dahabi ah iyo sidoo kale in ay maamuli karto deegaanada iyo degmooyinka ka kala tirsan gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe. Moqokori ayaana sidoo kale waxay isku xirtaa degmooyinka aadan yabaal, Maxaas iyo sidoo kale deegaano kale oo ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. kooxda al-shabaab ayaana sidoo kale waxay isku dayeysaa inay sii xoojiso deegaanadeeda kale si ay markaasi u soo celiso cududoodii awoodeed ee gobolka Hiiraan ay ku lahayd. dagaalka kooxda al-shabaab iyo sidoo kale ciidamada dadka deegaanka beesha Xawaale ayaana waxa uu soo bilowday bartamihii sanadkii 2022 iyadoona muddo ka badan 3 sano ay markaasi la dagaalamayeen kooxda al-shabaab. ciidamada dadka deegaanka ayaana guulo waaweyn waxay ka gaareen dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab, iyagoona sidoo kale dhowr jeer oo kala duwan xubno fara badan oo ka tirsan kooxda markaasi lagu laayay deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan. waxaa jira xubno markaasi nolosha looga qabtay intay socdeen dagaalada, waxaana kooxdu ay markale isku dayeysaa inay sii xoojiso gacan ku haynteeda iyo sidoo kale awoodeeda gobolka Hiiraan.